Dhismaha mool ganacsiyeedka Burj Omar waa dhisme aad u ballaaran oo koobsaday qaybaha kala duwan ee ganacsiga kala duwan ee dalka, kaas oo aad ka helayso gudihiisa waxa la yaalo wax kasta oo aad u baahnayd oo ay shirkado kala duwan iyagu halkaasi kugu hayaan. soo dhawow Gob Store, dukaanka ugu baaxadda weyn kuwa noociisa ah ee Somaliland. waxaa kuugu diyaaran noocyada kala duwan ee electronics-ka, dharka ragga iyo haweenka noocyadooda kala duwan, cadarrada cosmetics-ka, qalabka ciyaaraha iyo kuwa carruurta. marka aad soo gasho Gob Store, wajahadaada hore waxaad ku arkaysaa section A oo ah qaybta electronics-ka oo ay kuugu diyaar yihiin kombiyuutarro heer sare ah, moobayladii ugu dambeeyey, noocyada chargeriska, saacadaha casriga ah, cadarrada asalka ah iyo agabka cosmetics-ka. dhex mushaax oo kala bax dookhaaga, shay kastana qiimihiisu waa uu ku dul qoran yahay. Haddaba haddii aad hore u sii socon doonto waxaad ku arki doontaa halka ku beegan kasoo horjeedka Cimaaratul Khayr ama wajahada wadada halbowlaha ku beegan. waxay indhahaagu qabanayaan Anas Taylor oo ah qaybaha dharka lagu talo oo isagu dharka lagu talo kuna farshaxanaynaya sidii ugu dambeysay ama nashqad kasta oo doonaysa kugu talaya haday noqoto suudad, khamiisyo iyo nooc kasta oo ka mid ah dharka saraawiil iyadoona lagu salaynayo doonistaada iyo dalabkaaga. bushaaro dadweynaha idinkuna bixeer dhaha kusoo dhawow Haasi Consulting. ma u baahan tahay in shirkadaada loo sameeyo istaraatiijiyad fog oo wax badan ka tarta horumarka iyo higsiga shirkadaada? ma rabtaa in tababar la siiyo shaqaalahaaga si ay u noqdaan shaqaale keena natiijo miro dhal ah? ma doonaysaa inaad noqoto hogaamiye wanaagsan oo tusaale u noqda hadba cidda uu hogaaminayo? haddaba haddii jawaabtaadu ay tahay haa, dhammaan arrimahaas oo dhan waxaa ka shaqaysa Haasi Consulting oo ah shirkad ka shaqaysa Geeska Afrika. shaqooyinka ay qabatana waxaa ka mid ah horumarinta ganacsiga, diyaarinta qorshayaasha istaraatiijiyadda, horumarinta cududa shaqaalaha ama HRM, kobcinta dhaqaalaha iyo suuqgeynta, tababarada hogaaminta maamulka, daraasadda suuqa, maamulka munaasabadaha. Haasi Consulting waxay sidoo kale ku qaban doontaa adeegyo iyo tababaro kale oo badan. sidoo kale waxay xafiisyo ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Muqdisho. soo dhaweyn iyo wada shaqayn joogto ah waa astaanta Haasi Consulting. fadlan nagu soo booqo xafiiskaanu ku leenahay dhismaha Burj Omar dabaqa 3 ama nagala soo xiriir telefoonada iyo iimaylada shaashada idinka muuqda. fooqa Burj Omar dhinaca barina waxay indhahaagu qabanayaan Habboon Deeqa oo iyadu ku haysa dharkii dumarka. cadarradii iyo wax kasta oo ku salaysan baahida dumarka. haddaba ha moogaanin Habboon Deeqa. sidoo kale shirkadaha ganacsiga ah ee qayb ka ah shirkadaha degan moolka weyn ee Burj Omar waxaa ka mid ah shirkadda dhismaha casriga ah iyo sidoo kale nashqadaynta guryaha ee Sky Construction and Designing Company oo iyadu qayb ka ah shirkadaha waaweyn ee dhismaha ee degan dabaqa 3 ee fooqa. nooc kasta iyo sidoo kale dhismo kasta oo aad u baahan tahay iyadoona lagugu dhisayo qiimo jaban oo ku raali geliya. dhawaad macaamiil sharafta leh, aad baan idin soo dhaweynaynaa Sky Construction and Designing Company. mar walba gacmo furan bay idinku soo dhaweynayaan, qiimo macquul ah, guryo tayo leh, waqti fiican, intaba idinku diyaarnahay. soo dhawaada. faahfaahintaasi dheeraadna waxaad kala xiriiraysaa xafiiska shirkadda oo ku yaala floorka 3 ee moolka Burj Omar iyo sidoo kale lambarada shaashada kaaga muuqda. sidoo kalena ganacsiyada kala duwan ee ka jira gudaha fooqa Burj Omar waxaa ka mid ah Awad Construction, shirkadda dhismaha dhisaysa nashqadii ugu dambeysay iyo dalabkaaga iyo sidoo kale si kasta oo qurux badan oo aad dalbato lagugu dhisayo. dhismaha doonayso iyo iyadoo lagu salaynayo baahida uu qof kastaba uu leeyahay. taas waxay ku taallaa floorka 3 ee fooqa Burj Omar. shirkadda kor u qaadista beeraha ee marka loo soo gaabiyo la yiraahdo CBI adeegyada ay idin hayso waxaa ka mid ah la talinta beeraha, iibinta qalabka beeraha iyo abuurka, adeega fidinta beeraha, iibka greenhouse-yada iyo qalabka kale ee waraabka. shirkaddu waxa ay ku taallaa fooqa Burj Omar dabaqa 3. wixii faahfaahin ka daalaco lambarada shaashada kaaga muuqda.